Dowladda Sweden oo caawinaysa dadka iibsanaya guryaha cusub, dadka raba guri in ay iibsadaan oo fursad helaya. Wasiirka guriyeynta Sweden Johan Danielsson ayaa shalay helay natiijada baaritaanka dowladda ee ay dowladdu bilowday si ay amaah ugu siiso dadka iibsaday guri markii ugu horreysay. Baaritaanka ayaa lagu soo gabagabeeyey soo jeedin ah in dowladdu ay bixiso dayn la yiraahdo Starton dadka aan awoodin inay bixiyaan lacagta hormariska ah ee bangiyada uga baahan yihiin inay guri ku iibsadaan. Tani waxay u fududaynaysaa dadka iibsaday gurigoodii ugu horreeyay. Suuqa guriyeynta waa in ay ahaataa mid qof walba heli karo, ayuu wasiirku ku yiri si looga baxo kirada guryaha shir jaraa'id oo uu qabtay shalay. Marka la eego shuruudaha hadda la joogo, marka la iibsanayo guri ama dabaq, iibsaduhu waa inuu 15% qiimaha guriga ku bixiyaa lacag kaash ah, halka bangiyada ay ku dabooli karaan 85% ee soo hadhay amaah. Iyadoo dhawaanahan uu sare u kac ku yimid qiimaha hantida maguurtada ah ayaa waxaa kor u kacday lacagta kaashka ee ay dadka wax ku iibsanayaan, taasi oo caqabad ku noqotay dhalinyarada iyo dadka cusub ee soo galaya suuqa guryaha ee raba guri ay ku noolaadaan. Shirka jaraa'id baaraha dowladda Eva Nordstrom ayaa soo jeediyey soo jeedin ah Starton amaah ah loo isticmaali karo lacag bixin ahaan. Taas macnaheedu waxa weeye in qofka guriga iibsadaa marka ugu horreysa uu awoodi karo inuu amaahdo 95% qiimaha suuqa ee guriga, halkii uu maanta ka ahaan lahaa 85%. Gobolkuna wuxuu bixinayaa 10% qaab dayn dowladeed ah, ugu badnaan 250,000 karoon. Xadka ugu badan wuxuu noqon doonaa 2 laab hooyooyinka keligood ah ama aabbayaasha. Tusaale ahaan, haddii qofku uu guri ku iibsanayo qiyaastii 1 milyan oo karoon, waxaa laga rabaa inuu bixiyo 50,000 oo karoon oo keliya, halka markii hore laga rabay inuu bixiyo 150,000 karoon. Natiijooyinka baaritaanka dowladda ayaa weli ah talo soo jeedin ah in xukuumaddu ay horgeyn doonto qaab sharciyeedyo baarlamaanka. Magacaygu waa Maryan Adan Xaaji, halkan aad naga dawanayso waa Deeqsame. Fadlan nagu dhiirigeli in aad sii gudbiso si walaalo kale oo sidaada u wanaagsan ay nagu soo biiraan. Mahadsanid.